dadka deegaanka wada dega waynu garanaynaa waa inaan iyo abtigii waa laba qof oo wada dhashay laba qof oo mataqaana dad meel lagu kala tegaya ma aha haddaba waxaan isweydiinaynaa maxaa sanadahan dambe sababay in colaaddu ay soo noqnoqoto marbana mataqaanaa marxalad iyo xaalad gooniya oo tii horeba kasii qiraan ama kasii kakan wejigeedu u ekaado sida aynu ognahay xukuumadii kala horreeyay Soomaaliland soo maray sida maxamed xaaji ibraahim cigaal daahir riyaale kaahin axmed siilaani iyo tan muuse way ku kala duwan yihiin siyaasiyan colaadda ceelaf weyn iyo mataqaanaa sida loo oga hawlgelayo mashaqada halkaa mataqaanaa mar walba ka dhacda iminka xilligii hore dowladdii daahir riyaale iyo dowladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal colaaddana way dhici jirtay laakiin sida loo wajahayo ama mataqaanaa siyaasadda iyo nidaamka mataqaanaa xalinteeda lagu wajahayo ayaa wuxuu ka duwanaa tan ay dowladdii mataqaanaa ugu dambeysay axmed siilaaniyo madaxweynihii muddaxileedku ka dhammaaday dhabbada ay martay labada dowladood hore waxay mari jireen dadka colaadda mataqaanaa hurinaya hadday oday dhaqameed tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday mataqaanaa siyaasi tahayba waa la soo qaban jiray jeelka la keeni jiray inta badan sidoo kale ninka mataqaanaa inay keeno qoriga qaata ama qof dila ama qof dhaawacana waxaa la hor keeni jiray hay-adaha sharciga kadibna markaasaa labadii family ama labadii qoys ee dadkaasi ay ka kala tirsanaayeen ay ka wada xaali jireen laakiin sanadaha dambe waxaad moodaa labadii reer oo mataqaanaa ishor fadhiya oo isku dhimanaya oo isku dhaawacmaya in laysu maslaxayo laysuba subaasalaaxayo dhaqaale iyo fan lagu bixinayo mataqaanaa sidii labadaa qof ama labadaa beelood xaaladooda xal nabadgelyo loogu soo dabaali lahaa iyadoo ay meesha tootaleba ka baxday fulintii sharciga iyo gacantii dowladdu awooddii waxay dowladdu ay ku wareejisay iminka oday dhaqameedkan waqti xaadirkan waynu garanaynaa oo in badanoo iyaga ka midi waxay horboodaanba mataqaanaa xaaladaha amni darrada markaa laba shay unbaa inta badan soo celceliya haddii uu dagaalku soo noqnoqdo laba shay unbaa u sababa waa accountability horta inaan meesha jirin ama dadkii faldambiyeedyada caynkana ha ku eedaysnaa ama faldambiyeedyada caynkana sameeyey inaan sharciga la horkeenin taasi waxay sabab u noqota inuu dagaalku soo noqnoqdo ta kale root causeska ama wixii dagaal ka dhaliyey inaan iyana mataqaana daraasad lagu samayn oo aan la isdul taagin oo nabarkii dagaalkani ka soo dhukamay aan sidiisa mataqaanaa loo dabiibin ama aan loo daweyn ee dusha un mataqaanaa laga dhayo taasina waxay noqotaa wax inta badan dagaalka soo celceliyey waynu garanaynaa labadii goor ugu dambeeyay ee dowladdii hore ay isku dayday in ay xal ka gaadho arrinta odayaa la kaxeeyey hargeysa iyo burca qaarkood laga kaxeeyey mataqaanaa xaqiiqatan intooda badan ma ahayn dadkii mataqaanaa dadka sida dhabta xaligooda lahamay ahayn dee inanka ama ninka miyiga degan ama tuulada degan ama inankiisi maqan yahay ama uu maqan yahay mataqaanaa aabihii ama walaalkii ee oday looga kaxeeya hargeysa ama burco oo la yidhi odaganaa xadhigaaga ama kanaa xidhahaaga iyadoo gacantii dowladdu mataqaanaa awooddiiba wada siisay oday dhaqameedka de wuxuu ku bogsado runtii mataqaanaa dadaaladaas ma noqonayaan haddaba waynu garanaynaa waxyaabaha soo celcelinaya waxa weye nabarkiina sidii loo baahnaa looma daweyn sababta dagaalkan keentayna mataqaanaa dowladdu marnaba mataqaanaa ismay dul taagin waayo waxay cid kasta oo dagaalka ka qayb qaadatay hadduu caaqil yahay hadduu suldaan yahay hadduu madax dhaqameed yahay hadduu siyaasi yahay kii af adin qowl ficil wuxuu doonaba ahaade mataqaanaa arrintaa ku taageeray in sharciga la hor keeno sababtii dagaalkan keentayna mataqaanaa in dad dee khibraddeeda leh ama aqoonteeda leh in loo diro in laga daayo awoodda dheeraadka ah ee dowladdu mataqaanaa mar walba ay bidayso oday dhaqameedku in badanoo wanaagsan way ku jirtaa in badanoo mataqaanaa runtii aan daacad aan arrintani ka ahayna way ku jirtaa runtii waxyaabaha soo celcelinaya dagaalku waa waxyaabahaas annagu haddii aan nahay mataqaanaa dadkii deegaanka ama mataqaanaa gobolka sanaag ka soo jeeday runtii arrintan wayna dhibaysaa wayna xanuujinaysaa
على اليوم يقول بيري سامتي ما نقول بدي له تاجن يوم ما نقول ما تغنى كهدي من وكودي من واحد جت وقت حاضر كان إنه تاجنها أمام الصعدة وضلك الدبيت سك الصعدة وضلك الجودي سك الصعدة كاس قربتشوك ويعقوا ونورين هيا قربتشوك كان عصتو تو سياسيين تو يعقوا ونورين هيا واحد عيط لو ونورين هيا ما أهم بتكليه وما أهم تقارن لبضة بيرود الويشيسيو وإن علاض الوسيهوليو قلوب ذيك هلا بيدقالو صورورين إنسان وحملها وأنا باق بدر يقولون قربتشوك يعني وربقولكم طولنا تصدر إنسان العيلة في المصدر إنسان إن ما تقارن هي العيلة فين حساسية وهو بأيسوس سيستان وحكاكو أنت المهاجة وحكاكو أنت العيلة تنبيه كاجة ومن هذه الدنيا آخر وقتها سيدو كذا كان عصتها دلك الشوكة arrimaha iyana ma taqaan dhaqaalaha ku bixinaya iyana wax lagu baaqaya war ilma reero ka daayay waayo taasi xal marnaba ma noqonayso colaad maanta cid badan uma aha dhii qof muslim oo daatana ma taqaan qof ay dani ugu jirto labada beeloodnaba qofna dani ugu jirto talabaad nimanka oo dhaqameedka waxa la yiraahdo dawladdu waa inay gacan adag iyo cudud military ummadda kaga qabataan علاقة الهروج هذا قيب بكيه قيب اللي راح يقولي بكيه وحنا دولته وباقينا إن هو شرعي وصحيح إن شرعي لفنيه إن أنا عندنا أوهم رن وهايو مدحوني هدلك اللون داري السجع الدنيا أخرب الله يرح ساعتهم يعني ما هم عنه كلا صارت مغنية عاقل لما تقارنا حلوين كما صار الناس ودانا كما صار نقطة سيد أوهم ليه بتشجع شجعنا هي متقارنا على الدجال بنكون باقينا إذا ما تغنى ما كلا كشة كنا يبون أرجنا وكان دولته وحنا نقول باقينا إن أهرمتها قعد دولتين أي كوكا بطل القانون لا يرحم تذكر ما تغنى أهرمتها كقيم قاتل إن الهور كانوا شرعي وحكونا دولته باقينا لما كمان عندي دولة قال كل دعوة وحلا كان اختر هذا برافتك أما عرقابات أما برعات أما ميركبات اختر هذا برافتك هذا اللي بدوينه nimanka qudhooda inay ma taqaan dawladdu u aqoonsato dambiilayaal qaran oo jeelasha la geeyo oo jeelasha lagu daweeyo hadda marka la daweeyo ma taqaan sharciga la tiigsado ayaa dawladdu ku baaqayna aagaas waa aag ma taqaan dul daaqsimeeda dadkana waa dad wada degan dad meel kala tagay ma aha waxaan kula ma taqaan talo ku soo jeedin lahayn dugsiga tababarka ciidanka bixin oo kale إن أجا عيل فينا دجال وكان عيل الله صار هذا أو أجا لقى ديو عيد كوي أديك سيدا أنا ما تغنى حرام عيد اللي قسمه سيدا كله هو كان وين اللي بدأ بيرمر بيسوء أديك سنة دولة وين اللي بدنا هلك وبحر سنة هذه جواري تهاي يهدي قريها وين تهاي بقى وين أجا هو كل يجلس سنة وين الدولة عندها سوى نوبليسيا وين هذه الدولة ما تغنى ضد بقى وضع نقامات يومين ما تقارن كوفية بعلا ودلال وهامان وهرجسوا حباير والعيل الله وسيديبه وإننا الدولة ما تقارن ضد بقى ما سكر هو وكيلا وهدي للدولة اليوم إن علاقة صار مقطعي هل كده اللي هذه لا بضع شيء يعني مرة صار شيء إن ما تقارن عرقة وحن سبعين هذه وسيدي سلود دويه وما تقارن بوقت الطبيبه يعني الشرعي قال هو كانوا قف الله عليه قف والممتع قالنا يكون عضاته إن أهنتها كله لها سيئون مد قال كل بحيي مد مر كل بحيي مد مسكح كل بحيي مد مال كل بحيي انتبه هديونا نسيد الله يقولون إن هذا هذا قبيلتكم معنا والباهنتن وحكى قبتان كنت من أهين شوك سنة وحنلاقي الدولة دو وإن النباح حلنتها خلافات عيلة كوين وإن أمتها نباء كدوانتي أمة الحكومة دي يدك الرئيس وضدي محمد حاشم مريو وتكدون وإن دور كلها هادية وايو نين إنا كيسي مقيها ومتقانا آن عرقي إساق متقانا أما النبر كي حدنتين إيان لقدوين والعكس يصوت الانتاز هو مقتي أبها أما مقتي إنكاga أما متقانا وآسكي المهاga أما إنكاga أما قفكي كمغناو تسيبانيا درساس موسي سمية هو موسي سمية وحنا نقول إيسا مر والبصير هوريسا يبعتدوا ميشا تالي دولة وحنا باقينا أهمتها السيدة قولي أي كنت طبيبة كنت دوابيسا وحوي
in gacan dowladeed oo adag oo aan naxariis lahayn arrintaa lagu maamulo labada dhinac mid walbana ma taqaanaa aanay dowladdu midna indha gaar aanay ku eegin labadaba cudud dowladeed oo adag in arrintaa lagu qabtaan mar walba ku baaqaynaa in doorka ama ma taqaanaa awoodda dheeraadka wada dhaqameedka la siinayana in totalba meesha laga saaro ayaanu ku baaqaynaa intaa kadib dee ilaahay baan u weydiinaynaa inuu ilaahay boggooda burcad isu mariyo iyagu waa dad wada dhashay cid walbana way iska xiga arrimahaas baan doonaya maanta ma taqaana inaan kilibkan yar aan intaas kusoo gabagabeeyo dadaalka ma taqaana loogu jiraba waa inuu noqdaa ma taqaana mid aan sakarsho lahayn mid ma taqaana aan ciyaar ahayn arrintaas waxay ku faafi doontaa haddii la dhageersado guud ahaan deegaanada gobolka Sanaag hadhow waxay noqonaysaa arrin cawaaqibkeedu u gaaro Somaliland oo dhan oo ragaadisa dowladnimada jiritaanka qarannimadana ma taqaana wax weyn u dhinta madaxweynaha mar walba waxaan ugu baaqaynaa sidaan hore u soo sheegay in gacan dowladeed oo adag arrintaa lagu qabto laguna maamulo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaa ku jira أنا وسألك تقرأ سنة أنت كمان تصل